waqooyi bari TV. guddigii nabadeynta labada beelood ee maalmahan ku sugnaa magaalooyinka Ceegaag iyo Hurufadhi ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Buuhoodle waxaana guddidu kula warbaahineed ay ku qabteen magaalada Buuhoodle ay sheegeen in heshiiskii labada beelood haatan uu meel wanaagsan marayo isla markaana ciidamadii la kala qaaday waxa ugu horeyntii halkan si wada jir uga hadlay Caaqil Cabdilaahi Salabaan Xaaji Axmed oo ah gudoomiyaha guddida nabadeynta labada beelood iyo gudoomiyaha xogeenka guddidaasi Caaqil Cali Dahable waxaan filayaa muddo dheer bay hadda soo socotay muddo 20 iyo dhowr maalmood meel fiican way maraysaa aad iyo aad meel wacan bay maraysaa ma sha Allah waxaan ka bilownay Hurufadhi oo aan markii hore ka bilownay kadibna waxaan hawshaas ku guuleysanay inaan heerkii gacanta gaadhay naga warsugaan marka fadhigaasaan ku ballanay waxaan u gudbinay meesha la yiraahdo Ceegaag oo dadkii gacanta geystay ay joogaan sidaa daraadeed muddo 12 maalmood meelaha ilaa 10 baanu hawsha gacanta ku haynay wada hadal dabadii waxaan isla garanay guddidii inay hawshaas aanu dhaafooynay inaanu xidhno guddidii beesha Hayaag kadibna waxaanu ku soo noqonay meeshii kale oo ciidamadii iyo wixii aanu kala qaadnaanu u soo noqonay runaantii beeshaasi si wacan oo dhagan nugul bay noo qaabileen maalintii markaan la hadalay maalintii dambe waxay noo sheegeen inay qaadayaan ciidanka si fiican oo fududna u qaadeen ciidankaas halka nabadda ayaa noogu sugnaatay ciidamadii markii la kala qaaday dabadeed waxaanu ku noqonay Ceegaag markaanu ku noqonayna guddidii intii aanu ka helay iyo odayaashii soo hadhay baanu la kulannay odayaashaas wada hadal dabadii waxaanu isla garanay in dadkii gacanta geystay la helo haddii la haydan ka dhigo muddo koobanna way noo qabteen inay keenayaanna waa noo ballan qaadeen muddo 7 cisho baanu isla qaadanay 7 cisho kadibna waxaan filanaa inay hawshaasi soo gabagabayso haddii la haydan ka dhigo odayaasha xidhan ergada hore ayaa maxaa ku dhaar odayaasha ergada waxaanu xidhnay nabadda hawsha nabadda ayaa nala gashay waxaanu isla garan weynay sidii hawl maalmeedka iyo wadadii loo mari lahaa nabaddu inay fusho marka waxaanu ka fursan weynay inay halka aan la marro marka ugu horeysa inta bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam magacaygu waa Caaqil Cali Dahable kamid ah shirguddoonka guddiga 3 ahaa marka ugu horeysa waxaan halkan rabaa inaan uga mahad celiyo labada beelood walaalaha isku dhacay shaqaqadu kala gaadhay anaguna aanu ahayn guddiga 3 ahayd iyo ergooyinkii ismadii ka sareeyay ee hawsha nabadeynteeda ku jiray cid kasta oo nagala qayb qaadatay arrintaas hadday tahay ciidamadii amniga sugayay hadday tahay ergooyinkii soo degdegay ee khayraadka ka tijaaraysanayay iyo cid kasta oo labada beelood ka mid ah arrintan nala fududeysayba marka ugu horeysa si guud baan uga mahad celinayaa marka labaad waxaan si guud iyadana u sheegayaa arrintaas inay marayso meel aad iyo aad u wanaagsan oo xabad joojin ah oo ciidamadii la kala qaaday oo amnigii gacanta lagu hayo oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala aan ka rajaynayno hadda wixii ka dambeeyay inay halka ka sii wanaagsanaato ayay maraysaa si guud haddana arrintan dib ugu noqdo muddo badan oo 16 sano baa dhibaatadeedu soo socotay waxa ku kala dhintay dad 40 ku dhow waxa la kala qaatay maga badan hadda ka hor qisaas baa la isu dhiibay in badan baa laga dadaalay in isku dayay arrinta in la joojiyo oo la xakameeyo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ma idinin iminka labada dhinacba waxa ku xaraysnaa magihii la kala qaadanayay oo halkii bisha labadeedii shilkan uu ka dhacay lixaad bisha 8 waxa loo balansanaa in magaha laga kala wareego marka arrinta shaqaqadaasi markii ay soo noqotay guddigeedii islaax beenanaaska u mid ee khayrka ka tijaaraysanay ee xalka labada beelood raadinaysay waxaan u aragnay wixii hore 16 sano soo socday oo lagu soo macaamili jiray in aanay wax ku dhamaanaya aanay jirin waxaan uga soo ballanay beesha Hayaag waxaan ku liglaashay inay ku keenaan muddo 7 casho 7 casho oo ka bilaabanaya maanta oo bishu ay ahayd 24 ka bilaabanaya ayay ugu soo ballanay inay gacan ku liglaashay ku keenayaan anaguna waa ugu ducaynay insha Allah Ilaahay waa ka sugaynaa ku soo dhawow bogga aan ku leenahay YouTube-ka ee waqooyi bari TV fadlan si aad u heshid wararka ayada fadlan subscribe saar jalasku waxa kuu sahlayaa inaad si fudud ka heshid wararka ayada mahadsanid waan hubaa wararkaanu soo gelino bogga aan ku leenahay YouTube-ka
inaad ka heli doontid haddii Ilaahay idmo wararka deegaamada waqooyi bari iyo Soomaaliya inteeda kale warar ku saabsan halkan ka hel. Daawadaha sharafta lahu mar kale ha u deeman la'aan bogga aan ku leenahay Facebook ee Waqooyi Bari TV si aad u heshid wararka ayada isna booqo bogga aan ku leenahay Facebook ee Waqooyi Bari TV.